iyadoo ilaa xalayto gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka togdheer la isla dhex marayay in lala soo baxsaday laba gaadhi oo ay leedahay wasarada caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina lagu qabtay qoyska wasiirkii hore ee wasarada caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Salebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye askar ka tirsan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba darawalladii gaadiidkaasi ayaa waxaa telefishinka caalamiga ah Cable TV uu saaka subaxnimadii isku dayay bal inuu arrintaasi wax ka ogaado waxaanu la kulanay taliyaha qaybta booliska gobolka togdheer gaashaan la dhexe Cabdi Cali Xayd waxaanu faahfaahin ka bixiyay arrintani waxaanu tagnay controlka berbera waxa ay soo taageen laba baabuur oo haartoba oo number S wata isla markaana ay saaran yihiin saddex askari iyo labada darawal nimankii darawaliintii waan soo dejinay waxaan baabuurtani maxay ahaayeen waxay yiraahdeen waa baabuur wasaaradda caafimaadka waa baabuurkii wasiirka wasaaradda caafimaadka is number bay leeyihiin wax buuga ma baabuur private ba mise waxa weeye baabuurtii dawladda noomay kala cadeynina wax documents ah oo ma taqaanaay ay private ahaan loogu leeyahay namay tusin sidaas awgeed waxaan nidhi team caafimaadeen lama socdo wasiirkeedii lama socdo khaatiiradii lama socoto mas'uuliyiin kale lama socdaan xageeba u socotaan waxay yiraahdeen waxaan u soconnaa laascaanood maxaa ka doonaysaan odayaal baan soo qaadaynaa annaga arrintaasi shaki bay nagu abuurtay bacdama dawlad cusub la soo magacaabay wasiirka caafimaadkuna aanu ahayn xubnihii lagu soo daray wasiiradan cusub waxaana galay shaki waxaanan u qaadanay hanti qaran oo lala baxsanayeynatay sidaas ayaan ku qabanay baabuurtiina aanu ku dhignay telefishinka caalamiga ah Cable TV ayaa taliyaha qaybta booliska gobolka togdheer weydiiyay bal inay xidhan yihiin xubna ka tirsan qoyskaasi wasiirka wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland totally wax qof bini aadam oo aanu xidhnay oo ma taqaanay shanta qof baa la socday saddex military bay ahaayeen xiriyihiin iska xaadiriya baan niri waxa labadii darawalla tii suuqa albeerkooyin ku yaalay seexdeen waxaana waqti habeenimana wahayd aroortaananu ballanay saakana waxaan ku baabariisanay iyadoo la leeyahay xaas baa la xidhay iyo ma taqaanay nima baaj saldhiga dhaxa ka soo hadlaya iyo waxaasi waa wanaagsan iyo raatoon lahayn taliye saldhiga dhaxana waa kan uu jooga goob joog weeye la saddexdii askari ciidanka qaranka ahaayeen waxaan ciidankii qaranka u taga waayo qaybta 12aad ayaa halkan degan ciidankiina iska xaadiriya baan niri waxa kale oo dhacday labadii darawalna waxaan magaalada soo seexda media waxa la galiyay waa waxaan sal iyo raatoon lahayn oo beena xaas wasiirna lama soconin mas'uul team caafimaadna lama socon dhakhtarna lama soconin mas'uul kalena lama soconin saddex askari laba darawal bay ahaayeen marka anagu waxaan u qaadanay in hanti qaran oo lala baxsanayo ay tahay sidaas aan ku qabanay baabuurtiina aanu ku haynaa ilaa hadda cid u xidhanina aanay jirin geesta kale taliyaha saldhiga dhexe ee magaalada Burco ee xarunta gobolka togdheer gaashaan leh Khadar Faarax ayaan waxaan wax ka weydiinay bal inay ku xidhan yihiin saldhigiisa xubnaha qoyskaasi wasiirka waxaana kamid ah hadaladiisii saldhiga la sheegay la leeyahay ku xidhan waa saldhiga dhexe Burco saldhiga dhexe Burco ana ka mas'uula eedaan xidhnayna ma jirto aragaan arkayna ma jirto waxa la sheegay laba gaari oo wasiirku ku magacaabay oo la saana war hoynin baarisna loo xidhay booliisku baaris wax uu hakiyaa laakiin dad xidhan oo hadda aanu haynaa ama darawal ha noqoto ama xaas wasiir ha noqoto ama cid kale wasiirka ku abtirsatada ha noqoto oo haynaa ma jirto labada gaarnimo qaybtay joogan waa la baarayaa ama gaadiid sifa sharciye waxa weeye ku mareeyay wadada noqon doonaan ama gaadiid waxa weeye dalalunsanayo gaadiid dawladdu leedahay ay noqon doonaan booliiskuna wuxuu ka shaqeey karaa waanu qaban karaa laakiin dadka la sheegay ma xidhna saldhigayga saldhig kale ay ku xidhan yihiin ma jiraan Ibrahim Faarax macaan iyo Cable TV